وكسي عسلاده وحنا هبون قف كست إنه فاهمين أصلا مركو دعوة كنسده إنه كم يديها كيسك هل كان وحابون إن قف كسته كيسي وصوم موجيا أما تسولين إنه كانوا سأينا أنو ودبرعناه أنو قبلنا توجي أما قف كده كيستي gabadhaydu way dhibaataysan tahay dambiilayaashiina banaanka ayay iska joogaan ayagoo xor ah inta waa ka xoog badnaan lahaa kiiska haddii adiga gabadhi oo sideeda aad noo keento oo macnaha waxba aadan ka bedelin laakiin si hadda kiiskaadii waanu sii wadaynaa waxaanu ku siinaynaa warqad la yidhaahdo B3 warqadan waxaa la yidhahdaa B3 waxaad geynaysaa isbitaalka halkaa ayaa iyagana soo buuxinayn dib baa anaga noogu soo celinaysaa annagana halkaas ayaanu buuxinaynaa waxaana ogaataa warqadan qof kasta oo dacwad wata oo B3 la'aan in waxba aynu u soconayn ma fahanti waa mahadsanid askari waryaa aamus haddaan ku imaado halkaa marda ma aad gargaraacis fiiqow shaygaadu aad buu u wanaagsan yahay si aad u macaan yahay islaantaadu si wanaagsan bay u koraysaa waan jeclahay shukri suuqa ayaan kugu sugayay waad ugu daahday wani waxaa islaantii baa bakoorada iga qarasay waxaan rabay inaan intuso sideen ay kugu ciyaar kartaa fiiqow islaanta fasax bay u baahan tahay waayo xaal oo dhan baan garaacayay waxaan tijaabinayay inay bakooradu jabayso xaaskaaga oo la dilo waxay ka soo jeedaa sharciga Allah way wanaagsanaan lahayd laakiin islaanteedu ayaantan geesii la soo baxday taasi waa aflagaado aad u xun waxaan ahay ninkeeda waa in ay xushmaysaa shukri saaxib naag inaad dishid ma ahan si aad uga heshid qadarin dumarka oo la garaaco waxay ka soo horjeedaa xuquuqda bini'aadamka waa inaad ogaataa dumarku inay xaq leeyihiin weyn maxaan ku yidhaahdaa waa in jacayl loo muujiyo iyo muxbo maxaad uga jeedaa marka rafiiq luqadda kaliya ay naagtu wax ku fahmi kartaa ragga waa ul haddii kale waxay ku fahmayaan carruur arrintaasi waa xalka kaliya ee xushmad ku leeyihiin kuna aqoonsanayaan inaad nin tahay ee saaxiib shukriyow naagtaadu hadday kugu aflagaadooto waa in ruux la iska garaaco waxay ka soo oo dumar labada darteed loo garaaco waxay ka soo horjeedaa xuquuqda ruuxa weliba qofaad jeceshahay ruuxa jeceshahay dibkii hadhow dhib baa kala imaan kara haddaad dishid kadib oo booliisku ogaadaan axmed hayna qiyaamin anigu waxaan arkayay adigoo xaaskaaga qaraacaya haa waa iska daayay laakiin waxaan ogaaday xalkan inuu jiro oon dagaal ahayn qaar ka mid ah waxyaabahan waxay jiri jireen waayo hore balse hadda nolosha ayaa isbedeshay maanta dunida oo idin waxaa ka jira sharciga xuquuqul insaanka kaasoo aan ogolaanaynin in dadka la dilo inaan loo diiday shaqooyinka iyo waxbarashada ayagoo lagu dhahayo waa dumarnimadooda awgood saaxiibayaal aan iska dayno dhaqamadan foolka xun ee laga baxay maanta waxaa loo aqoonsaday shaqaaqooyinka jinsiga waxay ka horjeedaan xuquuqul insaanka waana faldambiyeedyo aad u waaweyn axmedow waxbaa maskaxdaada ka baxay waa maxay waxaad ugu yeelaysaan shaqaaqada jinsiga shaqaaqada jinsiga ku salladaysan waa waxyeeleen dhanka ah rabitaan lab iyo dhadig waxayna ka imaadaan awoodaha doorka jinsiyadeed meeshan eri adag hala imaanina ee foodeeya maxaad uga jeedaan doorarka jinsiga doorarka jinsigu waa xilalka dhaqanka caadada mas-uuliyadda dhaqanku uu siiyo rag iyo dumarkaba axmedow waan ogaa waxa aad soo wado buuqan muxuu yahay xaafadda ka baxaya dhalida soo geli maxaad ku hadlaysaan ma kuu sheegnaa marka hore bal soo wareegsada maxaa dhaca maxaa jira waanu ka dhegaysanaynaa waxay sheegayaan waxaa wadnaa fariin ku saabsan shaqaaqada jinsiga fiiriya waxaan wadnaa shanta shaqaaqo ee ka jirta xaradeennan waxaa ka mid ah midda koowaad sidaad aragtaan waa midda koowaad waxay tahay garaacitaanka ama addoonsiga tan labaad yaa waxay tahay caydada
ama handadaada ruux aad handadado. midda saddexaad waa dhibaatada dhaqaale waxaana ka mid ah takoorka aad qofka ku samaysid iyo ka saaridda bulshada. waxaa kaloo jira carruurta oo la faraxmeeyo iyo kufsiga. waxaa ugu dambayso faldhaqameedyo oo aad u foolxun weeye laga xumaado. waxaa ka mid ah kan khasabka ah kan degdega ah iyo gudniinka fircooniga. aad ayay u quruxsan tahay sawirkan aad buu u fiican yahay. bes saaba ordaha meesha ka timaad maya warqadahan idinkaas kala haysta meesha ka timaad ordaha aadam wariya carruurtaan ugu soo diray xageeba nooga yimaadeen waaba dad xujaaba. markaan booliska ka soo tegey ayaa waxaan u tegay guddoomiyaha si uu ii caawiyo waayo boolisku waxay u baahan yihiin caddaymo badan. guddoomiyaha ayaa wuxuu igula taliyey in aan u tago xafiiska aarsikeyda. aarsikeydu dadka ayay waaciyogelisaa. waxaa kaloo u samaysaa dabagalka dembiyada booliska. way fiican tahay hadda arrimaha boolisku wax ka qabanayaan. meesha batagaysaa aniga waan dadegsanaa shir baan leeyahay waan dadegsanaa inaan ku arkaan rabin wax dhibaato aysan jirin waqti kale aan arki doonaa ma jiro saasaan ku dhamaysan karnaa. waxaan rabaa inaan kugu casumo arooska gabadheyda aamina iyo jamaal ninka taajirka ah xoolaha leh. oo ma aamina la guursanaya haa aniga jamaal waan ku heshiin waqti u habboon aan qabalna kuna casumi lahayn. ma malan maayo go'aankaas inuu yahay mid wanaagsan. sabab aamina waa gabar yar carruurteena aan siino waqti ay ku koraan iyo waqti ay wax ku bartaan. oo adna hadda ma isbedelaysaa. aniga ma aha waa sharciga waxaana jiro sharci adag oo ka hor imaan doona guurka noocan oo kale ah. waxaanu kuu sheegaa saaxiibkay shukriyow arooskaani ma suurtagelaya ee ka fiirso. oo u malayn maayo arrinkaas waa haa marwo waxay balqaalaha waa kaa qaadnay waxaan ka wada hadlaynay aniga odayga guurka gabadhiina aaminaha yar ina keen waa howl baan leenahay labada marwo war wanaagsan ayaan ku wadaa. aamino waxaa guursanaya jamaal waa nin taajira wuxuu leeyahay 2 dukaan iyo kawaan wuxuuna siinayaa lacag badan iyo 2 halaad. shukri aamino waa 15 jir waa ilmo ciyaal iskuulkeeda ha dhamayso. gabdhahana way koreen waana sababta rag u daba ordayaan. waa ogeyd waxa ku dhacay daraad Faadumo. aamino oo koon hadday helaan maxaa talaba ku sameynayaan. gabdhahana haddii la kufsado cidna u guursanaysa lama helayo. arrinkaas arrin fiican ma aha. aniga xataa ma jeclay balse waxaan u baahannahay lacagta gabaadka aan u baahannahay. waa ceeb in xaafadahan loo kaga keeno maalin walba cunno qaaraana. waa sababta keliya ugu badbaadi karno raggan gabdhaha daba ordaya haddii la kufsado cidina guursan maysa. shukri waan ka badbaadin karaa gabdhaheena horta kadaan ka samayno laakiin muhiimadda waxay tahay aamino iyo faadumo inay iskuulka dhammaystaan ayagoo qaangaaday waxna bartay marka ay guursadeen. ka warran marka ay weynaadaan haddii rag daba cararaan haddana. okay taasu dhib ma lahan amba markaan guursanayay la iima dooqin. aniga saas hayla hadlin waxaana reerka madaxiisanahay wixii tala uun keenana badbaadiyii reerkaan ahay waa in la qaataa taladeeda maaha in war laga dabeeray aniga. intaadna badbaadin lahayd ayaadna garaacaysaa gabdhaha ilmahaagina waad gadanaysaa. balaag Faadumo way niyad jabsan tahay dadkana lama hadlayso. maxaan kala hadlayaa aqoonta waxay iska dhigaysaa wax la soo kufsaday. Faadumo waxaa kufsaday mawlidka dariskeenna ahaa. mawlidka dacweyne si aad cantaada xunta u badbaadiso. mawlid
iyo mid ka mid ah saaxiibadii ayaa Faadumo duurka ku soo kufsaday. عيبني مولدني وحسمي معي مولد intay la xarbinaysay Faadumo ayay aragtay wajigiisa si fiican u fiirisay way kala baqaysaa arrinta inay kula imaato